السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وناكسن قيارتها ودنقا داونيسا halkan waa TV-ga caalamiga ee Somsad Muqdisho Soomaaliya kusoo dhawaada warkii caalamka oo idin kaga imaanaya xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada wararka caalamka ugu waaweyn waxaa ka mid noqonaya wafdi balaaran oo hogaaminaysa wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. maamulka gobolka Hiiraan ee dawladda federaalka ee Soomaaliyeedna waxa uu 48 saac gudahooda u qabtay in xal waara laga gaaro xiisad u dhaxaysa laba beelood oo wada degta qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. siyaasiyiin culamo diin iyo aqoon-yahano ka soo jeeda beesha Sade oo kulan ku yeeshay Kismaayana waxay si cad u taageereen heshiiskii dhexmaray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubba kaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. shacabka ku sugan magaalada Taleexna waxay soo dhaweeyeen safar loogu magac daray socdaalkii nabadda oo madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu ku tagay dhawaan Taleex. baarlamaanka dalka Britain waxa uu si cad u diiday in dagaal lagu qaado dalka Syria. intaas waa qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa inta aan u gudbin qodobadaas oo dhameystiran ku soo dhawaada qadar yar waxay siina